السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walalaha Soomaaliyeed muslimiinta mu'miniinta ah meel walba aad joogtaan Allah subhanahu wa ta'ala hadii ku amaansado akhrintii buugeeni lagu magac daray 4000 essential English words waxaan marownaa markaani gabagabadii ayaan marownaa afartii cutub ugu dambeysay ayaan ku jirnaa. maanta waxaan ka bilaabi doonaa akhrinta markaas buugi koowaad cutubka 27aad ee page-ka 164. Allah subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyo markaas barashada luqadani. cutub waliba waxaana lagu siiyaa 20 eray. 20 eray ayaan maanta baran doonaa Ilaahay hadoo idma. arday walba waxaan kula dardaarmayaa markaas dadaal iyo markaas dheer inuu sameeyo luqadani mid kaliya lagu barto waxa waaye inuu sameeyo qofka practicing inuu sameeyo oo ah markaas inuu qofkani ku hadlaa in badan inaad ku hadashaa ayaa waxa la yiraahdaa practice. muhiimada uu leeyahay markaas luqad in la bartaa tan ugu muhiimsan waa inuu qofka shayga uu ku hadli karaa carabkaaga shaygaas marka uu mar walba uu baraatikeena uu ku celcelinayo waa uu la qabsanaya. af Soomaaliga hadda tusaale markaan ku hadlayno noogama baahan inaan ka fikirno noogama baahan markaas waxa doonto ku hadashaa saas macnaha waxa keen waxa waaye mar walba ku hadashaa mar walba practice gareysa. marka walaalihii waxaan dhihi lahaa in mar walba la joogtay markaas ku hadalka luqadda waxaa jira hadda waxa soo baxay markaas application dhowr ah oo markaas online chatting ah oo lagu wada sheekeysana markaas si online ah qof wadan shisheeye joogi adiga inta jooga ayaa waxaad ku wada sheekeysaneysaan online practicing wada sameeynaysan. applicationadaas badanna waa ay soo baxeen. qofku waxa la rabaa ereyga uu ku hadlayo erey uu garanayo inuu yahay markaa ku markaas ereyadana aad ay muhiim u yihiin inaad erey badsataa qofba qof intuu ka erey badan yahay ayuu markaas ka hadal fiican yahay ereyada aad ay muhiim u yihiin inaad ereyada u badsataa. luqad lagu sheega waa erey ayaa la rabaa markaas inaad si fiican u xifdisaa. waxaa la rabaa tusaale passage-ka hadaad aragto qorme ama sheeko ama ciwaan meel ku qoran ama waxyaabahaas is journal aad aqrinis waxa la rabaa boqolkiiba 2 mise boqolkiiba 3 bas inay erey ku dhibal aad ka dhaxayta ama uusan ku dhibinba sidaas waxa la yiraahdaa ereyada qofka inuu xifdiyo. balse hadaad aragto qormo dhan aqrinaysa mise sheeko dhan aqrinaysa mise wax kale aqrinaysa hadaad aragto boqolkiiba 50 ku dhiftay taas macnaheedu waxa waaye wili ma bislid wili English xaqiisla ma bislid oo maadan bislaysan Englishka. marka waxaan kula talinayaa inaad u erey badsato markaas waayahay hadii si halkaas aan ugu gudubno cashirkeeni maanta hadii aan guda galno cutubka 27 160 iyo 4 page-ka way ereyga noogu horeeya waxa uu yahay actual xaqiiqa actual waxa la means waxa la jeedaa in fact xaqiiqdi oo reality mise dhab ahaanta. tusaale my dad aabeyga Lucas wuxuu ogyahay Eledal mean nin iska yar xasid ah ayuu u egyahay bal laakiin actual xaqiiqdi he is a very candy waa nin naxariis baran. ereyga xiga waa bite qaniinis way bite waa qaniinis. bite waxa la yiraahdaa is the act of using waa wax qabad aad isticmaalayso your teeth ilkahaaga tukad aad ku jirayso another misna aad ku jeexayso into something shay. tusaale waxa leeyahay the boy wiilka took a big bite wiilka waxa uu qaniinay of his hamburger ki ayuu qaniinay yani waa uu goost saasa la jeedaa yani hamburger waa rooti inta markaas la feeday oo la dhaxgeliyay hilib iyo khudaar iyo waxyaabo saali yiraahdo hamburger inta badan waxa lagu sameeyaa hilibka lo'da. cost waa xeeb ereyga xiga waa cost waa xeeb. the cost waxa leeyahay is land waa dhul ba an ocean ay leedahay markaas bad
weynta. tusaale waxaa leeyahay I stayed on the southern coast, waxaan joogay markaasi koonfurta xeebta koonfureed of Australia ayaan joogay. deal waa gorgortan ama la macaamilid. a deal waxaa leeyahay is an agreement, waa heshiis kaasoo you have with aad la yeelata another person, qof kale. tusaale waxaa leeyahay I made a deal, waxaan la heshiis aan la gaaray with other company, shirkad kale, to give us inayna siiso some money, lacag. ereyga xiga waa desert, lama degaan. the desert waxaa leeyahay is an area, waa goob of land, dhul ka mid ah, without money plants, aanan lahayn markaasi dhir badan, or water ama biyo aan lahayn. tusaale waxaa leeyahay not money plants, dhir badani waxaa la yiri garow kama soo baxdo inta desert lama deegaanka. ereyga xiga waa earthquake waa markaasi dhulgariirka. waa dhulgariirka. an earthquake, dhulgariirka is a shaking movement, waxaa markaasi dhaqdhaqaaq ruxid ah of the ground oo dhulka uu ruxmo. tusaale waxaa leeyahay the building dhismihii shook waa uu ruxmay during inta lagu jiro the earthquake, dhulgariirka. ereyga xiga waxaa waaye effective shaqaynaya. waxaa waa shaqaynaya. waxaa leeyahay markaasi qeexitaanka waxaa leeyahay if something haddii shay is effective uu shaqaynaya, it shaygaas works well, wuxuu u shaqaynaya si wanaagsan. tusaalaha swimming, dabaashu, is an effective way, waa hab markaasi si fiican u shaqaynaya to stay healthily, ee markaasi ku joogteynaysid caafimaadka. ereyga xiga waa examine waa sahmin ama baarid. examine waxaa leeyahay to examine something, inaad shay baarta, is to look at it carefully, waa in shaygaasi aada u raadisaa si taxadar leh. tusaale waxaa leeyahay the doctor, dhaqtarka examined wuxuu baaray my eyes indhahayga today, maanta ayuu baaray. ereyga xigaa waa false, waxba aan ka jirin ama aan sax ahayn. false waxba aan ka jirin. waxaa leeyahay markaas if something haddii shay is false uu yahay mid aan waxba ka jirin, it shaygaas is not correct, maaha mid sax ah. tusaalaha if you think haddaan baleed the answer jawaabta is false, inay jawaab tahay mid sax aan ahayn, press riix the red buttonka guduudan riix ayaa leeyahay. ereyga xiga waa gift, hadiyad. gift waa hadiyad. gift hadiyadu is a something, waa wax you give asiisa someone, qof. tusaale waxaa leeyahay Dave Nicolia received wuxuu helay money gifts, hadiyada badan for Christmas u qoran ayaga. anaga waxaan leeyahay marka for it. waxaan u gudbaynaa page-ka 165. weli waxaan ku guda jirnaa cutubka 27. 20 eray ayaan weli ku guda jirnaa. 10 eray ayay ahayn inta aan soo barin, 10 kale intana lagu baraa. ereyga ugu horeeya waxaa waaye hunger waa baahi. hunger baahidu is a feeling, waa inaad dareentay that markaasi you get inaad hesho when you need, markaad u baahato to eat, inaad wax cunto. tusaale waxaa leeyahay after playing all day, ciyaaridii maalintii oo idil, he was filled with hunger, waa uu soo baahday. ereyga xiga waa imagine waa qiyaasid. imagine inaad qiyaasa something shay is to think, waa inaad ka fikirta of it shaygaas in your mind, maskaxda u fikirtaa. sel waxaa yiri imagine it, waxay qiyaastay herself, nafsadeeda weyn inay ku guuleysto lots of money, lacag badan. ereyga xiga waa journey, safar. journey safarka is a long trip, waxaa markaasi safar dheer waaye. tusaale waxaa leeyahay I went to Hadan or on journey, safar ayaan across aan ku maray the country, wadanka with my parents, waalidiinteyda. ereyga xiga waa puzzle, waa xujo. puzzle waxaa leeyahay xujadu is a something, waa wax taasoo is hard, ee adag tahay to understand, in la fahmaa. waxaa leeyahay tusaalaha the question, su-aashu was waxay ahayd puzzle, xujo to him, isiga ayay ku noqotay. quite waa ilaa iyo xad. quite waxaa leeyahay is waxaa loo isticmaalaa to say inaad tiraahdaa daa'ima kaasi something shay is completely, inuu dhammaystiran yahay or ama very much oo aad u badan yahay, ilaa iyo xad. I think waxaan maleynayaa taping on a keyboard,
garaacista markaas keyboardka is quite easily ilaa iyo xad inuu yahay mid fudud. rather waxaa layiri is used waxaa loo isticmaala when you want markaad to do inaad sameynto one thing wax but like not the other aadan ahayn wax kale. I would rather waxaan yara have rabay the red one midka guduudan than the blue one midka markaasi bluega markii loo fiiriya. Specific qaas ah waay. Specific qaas ah. If something haddii shay is specific u mid qaas it shaygaas is price or exact waa mid sax ah or ama exactly mis wax jira oo sax ah. tusaale waxaa leeyahay please fadlan choice door specific please goob markaasi sax ah on the map ee qariirada ka doora. ereyga xiga waa tour waa tamashlayn ama safar gaaban ayaa waxaa la yiraahdaa tourka waxaa leeyahay short trip waa markaa safar gaaban waa in which taasoo you see aad aragtaa many sight waxyaabo badan oo muuqaal mise aragti aad aragtaa. tusaale waxaa leeyahay I took a tour waxaan markaasi tamashlayn aan u aaday of Asia ayaan u aaday Europe wadamada markaasi qaaradaha Asia iyo Europe ayaan waxaan u aaday tamashlayn. trip waa safarka is a journey waa safar to a certain place aad ku aadaa goob cayiman. waxaa leeyahay Kenny Clear took a trip wuxuu safar ku aaday to the city magaalada yesterday shalay. markaasi value waa qiimo if something haddii shay has a value qiimo leeyahay shay is worth qiimihiisa a lot of money waa lacag badan. Matthew ninkala leeyahay found wuxuu helay a treasure ayuu helay qasnadii lacagta ayuu helay of a very high valuable oo qiimo sare leh ayuu helay. waayahay waxaan u gudbaynaa page-ka 166 iyo page-ka 167 su-aalaha noogu qoran ardayga la rabaa inuu markaasi soo xaliyaa. waxaan u gudbaynaa page-ka 168 waxaase noogu qoran sheekadaasoo looga dan leeyahay markaasi inaan lagu xoojiyo fahamkii nala soo baray ereyadii nala soo baray ee 20ka ahaa. ereyadaas ayaa lagu soo lifaaqay. sheekadaas waxaa loogu magac daray the spider caarcaadadii and the bird iyo shimbirtii. waxaa leeyahay markaas waxay ku bilaabanaysaa sheekada there was waxaa jiray once a very big spider caaro weyn ayaa jirtay. if a bag hadduu dhilqe bag waa dhilqe god into the his web haddii uu dhalqe uu soo gala liyir markaasi caarcaarada hadduu soo gala his web qolkiisa ama guriga uu sameysto caarcaarada waxaa la yiraahdaa web ama xubna waa la yiraahdaa. hadduu uu soo galo he would examine wuxuu baari jiray isiga ayuu baari jiray ama waa uu imtixaami jiray imtixaan ayuu marsin jiray. however si walba ha noqota he didn't eat ma cuni jirin the bag ilqaha muusan cuni jirin right away waaya waxaa leeyahay markaasi he asked wuxuu weydiin jiray the bag ilqaha equation su-aal ayuu weydiin jiray first marka hore. it was always mar walibana waxay ahaa jirtay quite mid iska yara xasilan difficulty puzzle wuxuu weydiin jiray markaasi xujo adag oo iska yara xasilan ayuu weydiin jiray. if the bag's answer haddii jawaabta markaasi dhilquhuna was correct ay noqoto mid sax ah he let it go waa uu ogolaan jiray inuu iska baxa. if not haddaysan sidaas noqonin he ate it waxa uu cuni jiray dhilqihi. one day maalin a small bird shimbir yar on a journey safar ku jirta flew into the spider's web oo ku markaasi ku duuleysay caarcaarada gurigeeda korkeeda ku duuleysay. the spider caarcaaradii could not imagine way qiyaasan kari weysay eating inuu cunto a bird shimbir. it was so big waa ay ka weyntahay but laakiin his hunger baayada hayso was too great aad ay u weyntahay. he said wuxuu yiri to the bird shimbirkii wuxuu ku yiri if you cannot give me a specific answer jawaab cayiman haddaadan isiinin I will eat you waan ku cuni doonaa. the bird shimbirtii laughed qosol ay jabsatay waa qosashay. I could eat you ana waa ku cuni karaa but laakiin the bird shimbirtii was actual xaqiiqda scared waa yara cabsatay. she had used waxay isticmaashay all her energy tamarteedo dhammaan ay isticmaashay trying isugu daysto to get out inay uga baxdo of the web ee markaasi
gurigii carcarada. And the spider's bite qaniinyadii markaasi carcaradu can be very effective, waxay saameyn ku yeelan kartaa inay disho animals xayawaanada. Please fadlan don't eat me, hay cunin the bait. Shimbirta ayaa sidaas ku tiri. I would rather make, waxaan yara samayn karaa a deal with you, waan kula gorgortami karaaye. Okay, waaya spider carcaradii sid waxay tiri if your answer jawaabtaada is right, hadday noqoto mid sax ah, I will let you go, waan ku day doonaa. If not, haddaysan noqoninna, you must give me a gift, waa inaad hadiyad isiisaa. It must be something, waa inay noqotaa shaygaas a great of value, mid qiimo leh waa inay noqotaa shaygaad siinayso. Dabeed shimbirtii sid waxay ku tiri you can pick anything you want to eat, waad soo saari kartaa wax walba aad u baahan tahay inaad cunto. I will find it for you, waan kuu keeni doonaa. The spider markaasi carcaradii agreed way ku raacday. Shimbirta waxay tiri wax walba aad cunto waa u warsan kartaa, anna waa kuu keeni doonaa. Carcaradiina way ku raacday. Waxay tiri marka where can you take a trip, where halkeeba can you take a trip, aad safar ku gali kartaa to coast xeeb, the desert lamadegaan, and the mountains iyo booraha at the same time isku waqti. goormaa ayaad safar ku gali kartaa ayay tiri xeeb, lamadegaan iyo buuro. The spider asked, carcaradii ayaa sidaas weydiisay. The bit shimbirskii adkeed iyadan waxay weydiisay does this place, goobtaani miyay have earthquake leedahay dhulgariir. But laakiin the spider carcaradii did not say anything, waxba maysan dhin, shibay ka noqotay. I can see, waan u jeedaa those places, goobo meelahan when I fly, markaan duulo. Waan arkaa ayay tiri I can see, waan arkaa those places meelahan when I fly, markaan duulayo. Is the sky, miyaa cirku the right answer, jawaabta uu yahay. Jawaabta ma cirka baa. Meel markaa safar aad ku gasho aad arki karto markaasi lamadeegaanka iyo badda iyo buuraha iyo aad arki kartaa, jawaabta ma cirka baa. False, waxba kama jiraan, waa qalad. sidaas waxay the spider carcaradii. The answer jawaabta is Hawaii. Jawaabta waxaa lagu yiri waa Hawaii. Jawaabta wuxuu ku yiri waa Hawaii. No, hadda you must found some bags, waa inaad hadda ii keenta ayuu yiri dhilqo for me, aniga waa inaad ii keenta. The spider carcaradii climbed on the bird's back, waxay fooshay ku booday dhabarkii shimbirta. They flew, waa ay wada duuleen and ate, waxayna cuneen bags dhilqo together, wadajir ay ku cuneen. They took a tour, waxay wada qaateen markaasi tamashlayn of the forest, waxay ku qaateen keenta. Intaas kadib the bit shimbirtii took the spider home, guriga ayay usoo qaaday. From that day, months laga bilaaban, they were friends, saaxiibo ayay noqdeen. And they never tried, maysan isku dayin to eat each other again, mar kale inay is cunaan iskuma aysan dayn ayay leeyahay. waxaan u gudbaynaa page-ka 169 su'aalo waaye ardayga la rabaa inuu xaliyo. cashirkeenii maanta ee cutubka 27 halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wixii xumaan iyo gaf naga dhaca Allah subhanahu wa ta'ala naga cafiyo, waxaa nagu qaaday naf iyo shaydaan. wixii wanaag markaasi aan sameynayna Allah subhanahu wa ta'ala nagarati. salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. salaamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. walalaha Soomaaliyeed, muslimiinta mu'miniinta ah, meel walba aad joogtaan, Allah subhanahu wa ta'ala hadii ku amaansado akhrintii buugeeni loogu magac daray 4000 essential English words. waxaan marownaa markaani gabagabadii ayaan marownaa, 4 cutub ugu dambeysay ayaan ku jirnaa. maanta waxaan ka bilaabi doonaa akhrinta markaasi buugii koowaad cutubka 27aad ee page-ka 164. Allah subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyo markaasi barashada luqadani. cutub waliba alaaba waxaana lagu siiyaa 20 eray. 20 eray ayaan maanta baran doonaa Ilaahay hadduu idma. arday walbana waxaan kula dardaarmayaa markaasi dadaal iyo markaasi dheer inuu sameeyo
luuqadaani midda keliya ee lagu barto waxa waaye inuu sameeyo qofka practicing inuu sameeya oo ah markaas inuu qofkaani ku hadlaa in badan inaad ku hadashaa ayaa waxaa la yirahdaa practice. muhiimadda uu leeyahay markaasi luuqad in la bartaa tan ugu muhiimsan waa inuu qofka sheyga uu ku hadli karaa carabkaaga sheygaas marka uu mar walba uu baraatikeynaayo uu ku celcelinaya waa uu la qabsanaya. af Soomaaliga hadda tusaale markaan ku hadlayno noogama baahna inaan ka fikirno, noogama baahna markaasi waxa doonta ku hadashaa. saas macnaha waxa keen waxa waaye mar walbaad ku hadashaa, mar walba practice gareysaa. marka walaalihii waxaan dhihi lahaa in mar walba la joogtay markaas ku hadalka luuqada. waxaa jira hadda waxaa soo baxay markaas application dhowr ah oo markaas